hey hala soo dhawaado hala soo sheergareeyo insha allah waa barnaamij gaar ah oo aynu maanta ku falanqeyn doono arrimaha cakiran ee ka taagan geeska Afrika gaar ahaan degalada Soomaaliyeed marka insha allah hala soo dhawaado goor dhaw ayaan u gali doonaa barnaamijkan hala soo shumo insha allah hey Jeremiah waxaan maleynayaa qofkaas ugu soo horeeyay orodyahanka ugu horeeyay Xamdi waa orodkii labaad soo gashay dhammaan waa idin soo dhaweynaynaa insha allah goordhow waxaynu u gudageli doonaa barnaamij baaxad weyn maanta waxaynu ka hadli doonaa taariikhdii waynu ka yarnasanaynaa waxaynu ka wada hadli doonaa ama aynu idin soo tabin doonaa arrimaha cakiran ee ka taagan geeska Afrika gaar ahaan degalada Soomaaliyeed ama dhulkeena xaaladaha ka taagan mid siyaasadeed iyo mid dhaqan iyo dhaqaale ayaynu ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka waa idin soo wada dhameynaya dhawaantiin alla sheer gareeyo Master Shash oo salaamaya Shabeel Tawakkal dhamaantiin la soo dhawaado barnaamijkan ugu gudageli doonaa maadaama waqtiga uu ciriiri nagu yahay saacna uu qoobka dambe inagu faagayo inta aan barnaamijka u gudagelin waxaan doonayaa aaraarta barnaamijka inaan ku furo sida aad la socotaan kadib burburkii qarannimadii Soomaaliya waxaa ka tisqaaday arrimo badan oo jahwareer ku abuuray bulshada Soomaaliyeed mid dhaqan iyo mid dhaqaale jahwareerkaasi oo noqday mid loo caalwaayay 27 ilaa 28 gu'na jirsaday isbedelada la filayay ama hogasha laga filayay inay ka curato degalada Soomaaliyeed maalin walba ama habeen waliba waxay gashaa waji cusub wajigaasoo malihiisuna uu adkaado haddaba xaaladda maanta taagan oo dihatay waxyaabihiisa soo riixayay ayaynu doonaynaa inaynu bafur oga dhigno barnaamijkan caawa aynu doonayno barnaamijka waxaa igala qayb geli doono xildhibaan aadan jaamac kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha waddanka Ingiriiska degan magaalada Milton Keynes magaalada yiraahdo cariga Ingiriis ku taal xildhibaanka ayaan markaa maanta arrimo badan oo ku saleysan xaaladaasi aynu isla qaada dhigi doonaa mudane aadan jaamac kaahin kuma cusbo shaashada online-ka Facebook-ga Airo TV Kalson TV waa aqoonyahan inta badan ka faallooda dhaqaalaha iyo taariikhda geeska Afrika xildhibaan maanta waxaan kugu soo dhaweynayaa Airo TV iyo aalada Facebook-ga soo dhawow marka hore Faisal aad ma soo taagay dhamaan dadka daawanaya barnaamijka waxaan u gudageli doonaa barnaamijkeena sidaan hore u sheegnay waa barnaamij kooban waa barnaamij ifin doona wax badan oo qulubta dadka ka dadka qulubtooda ma taqaanaa gilgilay waa barnaamij ifin doona oo calwaa ama hurdawaa ku dhacay sabi badan iyo hooyooyin badan aadan si aynu hore ugu galno gudaha barnaamijkeena arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay noqotay waraabalkii loo riyo waa banaan habeen iyo dharaarba wax cusub baa ku soo biiraya fajac iyo mucjiso ayaa taagan bal marka hore maxaa sabab u ah maxaa galay baarlamaankii Soomaaliya madaxdii Soomaaliyeed yaa isku soofeynaya dadka yaa dhex socda waxa wax xulaaqinaya waa iyo absalan Faisal aad ma soo tahay niyo horta markii wax dhacaan dadka banaanka waxa fiican background ama meesha ka bilaabmaan asaaskeeda lafteeda in hoos laga ayaa muhiim ah dowladda nimka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gacanta ku haya waa dowlad imika shaqeynaysa muddo sanad ku dhow iyo sanad dhaaftay kulliba muddo sanadkaana wax ku talaabsatay horumar fara badan oo aan ka sheekeyn doono imika laakiin intii ka horeysay dafteedii intaan qaban ka hor waddanka Soomaaliya meesha joogay dafteeda waxa Faisal muhiim marka hore in dadka loo faaleeyo oo dowladda intaan macnaha aanay dadku aanay u qabaarin ama aanay ka hadlin ba oo aanay faaleeyay gelin ba bal meesha horta markay ka soo bilaabeen iyo meeshii markii hore joogtay meeshu waxa dadka muhiim ah horta marka hore in xasuusiyo Cabdullaahi Farmaajo 4 February sanadkii hore intaan dowladda qaban ka hor waxaan la soconay in dalka Soomaaliya uu ahaa dadka ugu musuqmaasuq badan caalamka number 1 waxa hoos ka yahay lacag $5 bilyan oo dollar ah oo ilaa hadda $5 bilyan oo dollar oo ilaa hadda lagu leeyahay dowladii Xasan Sheekh iyo kuwii ka horeeyay ayaa kuwii deyntaas iyada galay dalkan waxa way aragtay macquul oo la oran karo horumar baa laga gaarinaa
muujin xataa ciidamadii lagu talagalay taimka farmaajo qabanaya inay wadda ku filaadaan laftooda lagu fashilmay in la gaadho waxaa kaloo sii dheer oo aan la soconay dadka halka laga daawanaya ay ogyihiin in markii ay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo prime minister xasan cali khayre qabteen ay ku dhawaaqeen in dalku aanu dakhli rasmi imka lahayn isla markaan lagu leeyahayba 9 bilood oo mushahara ciidamaduna markaa ay meesha qabanayeenba ay mudaaharaad wadeen oo ay leeyihiin mushaharadeedii baan doonahana la siiyo horta dalku halkaas tagnaa waxaa kale oo sii dheeraa marka siyaasadda khaarijiga laga hadlayo in xasan sheekh uu ahaa madaxweyne hadda ugu dambeeyey oo ahaa nin aad iyo aad ugu dhow etoobiya oo ahaa madaxweyne ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee isagu tegey meesha loo yaqaan jigjiga kula dhawaaqay afkiisa ka yidhi dhulkaasi yahay dhul ay etoobiya leedahay oo ah runaantii ah mid nuqsaan ku ah nin kasta soomaaliyeed ama madaxweyne ama shacbi ahaadee in hadallada noocaas nuqsaantaa ku hadlo khalaad kale oo galay oo dowladda hore gasho waxaa ka mid ahaa in dumar fara badan oo soomaaliya kubaan kumana loo dhoofiyey dalka sacuudi arabiya oo shaqa ahaan lagu geeyey qodobka saddexaad kalena uu ahaa sirdoonka etoobiya oo ahaa mid faraha ka baxay oo muqdisho hargeysa kismaayo meel walba saa u yaacayay xataa heer bay gaareen dadkii markii dambe libaanada xataa baarlamaanku lafooda gabro iyo uga baqaan iyo xataa sirdoonka etoobiya ay joogay xamar horta wadcigaas waddanka jooga markiisa backgroundkiisa hore dadkii waxaa muhiima marka intaanan dowladda u imanin ka hor horta backgroundkii hore iyo meesha laga soo qaaday inay fahmaan yacni waxaad leedahay xaaladaha isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqan iyo dhaqaale ee dowladdan iminka taagan ka horreysay ayaa waxyaabo fara badan oo maanta taagan u asal ah ayaad leedahay waa hagaag marka waxqabadka dowladnimo markaynu ka nimaano dadka soomaaliyeed ee shaashada nagala socday airo t v way ogyihiin waxyaabaha la qabtay dhaliil baa jirta dhaliishuna waxa weeyaan waxqabad kasta dhaliil ayuu leeyahay xaaladda soomaalidu dadka soomaaliyeedna daawanayo waxay yaqaaneen ra-iisul wasaare iyo madaxweyne mar walba lakala yani maryo dhiig la kala furtaa maanta waxaa taagan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isku dhan ah iyo ra-iisul baarlamaanka ama guddoomiyihii baarlamaanka oo iyaguna sidoo kale yani dhib ka dhex taagan yahay dadka soomaaliyeed ee ina daawanaya ama caalamka meel walba jooga waa maxay waxa ay ku qanci karayaan oo ay madaxdooda oga fadhiisan karayaan ama ay ka sugi karayaan oo isleedahay faysal aad aad maas tahay horta waxa weeyaan waxaan ognahay dowladihii ka horreeyay dowladdan in magaranaysaay ay prime ministerka iyo madaxweynaha isqabsan jiray xasan sheekh baa ugu dambeeyey waad garanaysaa inta jeer prime ministerka la eriyey marka prime ministerka la eriyena arrintu ma dhib yaraa oo markaa ilaa 4 bilood ama 5 bilood ayay ku qaadaysaa prime minister cusub keento oo dowladda bilowgeedii iyo hawsha horumarkeedii dee wax noqonaya cawaaqib xumo hortay waa sax taa markii la waayey waxaa jira ashkhaas gaara oo aan doonaya magacaawno oo ashkhaasaasi ay ka mid yihiin baarlamaanka soomaaliya oo dowladda intay meesha qabatayba carqalad ku hayay meesha oo aan marnaba doonayn dowladda in la socoto waa mid dhibaato kale jirta oo waxaa jira dad kale oo gaar ah oo soomaaliyeed oo shacbiga soomaalida ka mid ah oo lagu tuunsan yahay inay ilaa imika dadkooda haystaan beerihii asandooyinka ku yaalla shabeellada hoose iyo meesha loo yaqaano gobolada maaragtay jubbada dhexaba beerihii dowladda haysta ilaa hadda ama kuwa shicibku lahayn ba haysta oo dadka noocaasa oo xildhibaanadooda adeegsanaya ama iyaga laftoodii gaarkooda u hadlayaba dadka noocaasoo kale aanay marnaba ogolayn in dowlad soomaalida helo oo dariiq kastoo ay u mari karaanba in dowladda curyaaminaya inta waxaa sii dheer xildhibaano gaara oo dano gaara oo kuwa aan sheegay iyo qaar lamid ah dano gaara fulinaya oo baarlamaanka ku jira ama iyaga laftooda xataa barnaamijka doonteen loo diiday oo markaa cod qorinayo oo maalin walba caqabad kasta ka hor keeni dowladda inay dhahaan waa hagaag daawadayaashayada qadarinta leh ee nagala soo dacalada Facebook iyo Airo TV waxaynu maanta ka hadlaynaa waa arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee ka taagan geyigeena waxaynu ka hadli doonaa arrimaha gobolada waqooyi ama Somaliland oo inta badan aynu iyaduna faaqidi doono waxaa kaloo ka hadli doonaa isbedelka siyaasadeed ee ka curtay wadanka loo yaqaan Ethiopia isagoo laftiisa aan kugu soo noqdo aadan baarlamaanka markaan u nimaano baarlamaanku xasaanad ayuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn ayuu leeyahay waxaa jira tan iyo dhowrkii bilood imika na wadaartay u kala dabqaad loo kala dabqaadayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha arrintii markay cirkaas ku sharartay waa tan imika uu madaxweynuhu haddana soo galay maantadan haddana waa tan la leeyahay ra'iisul baarlamaankii iyo oo ciidan wato
ayaa baarlamaankii soo galay shaashadaha waxaa laga daawaday ciidamo Ugandese ama nin Ugandese ah oo arintaasi runtii aniga shakhsiyan aan u arkay inay gaf ku tahay inuu nin madow oo Ugandese oo wadanka marti ku ah inuu soo dhaxgalo ama soo dhax istaago xasaanadii ama baarlamaankii xasaanada ee ayaga ahayd inay arrimahooda la faguraan inuu soo dhax istaago waliba loo kala tarjumo arintaas oo dhaawac ku ah midnimadeena iyo qarannimadeena iyo madax banaanideena taa lafteeda marka laga yimaado is-hayshashada madaxda dhalinyarteena iyo dadkan dhalinyarada ah ee wadankan u hiliilay inay wax ka noqdaan meena dhaawac ku noqonin arintaas wallahi horta sababtu waa arrin aad wax meesha ka dhacmanta Faisal soo sheegay waa arrin aad farxuma ah magaca Soomaaliya iyo waxtiba xukuumadda lafteeda dhaawac u geysanaysa laakiin hadda ku yar noqono arrinta oo dib u yar noqono aniga oo doonaya inaan ixtiraam gaar siiyo gudoomiye Jawaahir oo nin weyn oday ah in badan soo shaqeynayay dowladda hore ka qayb qaatay shuruucda dhisiddiisa ka qayb qaatay waxaan runtii aad iyo aad waxaan wahay malaha talaabooyinkan uu qaadayo oo aan moodo inay isagana farxmo ku tahay shacbiga Soomaalida magacooda farxmo ku tahay Jawaahir waxaa la soconaa inay kasoo bilaabatay arrinta markii hore inay lagu eedeeyay Jawaahir in markii hore soo bilaabay mooshin ka soo horjeeda barnaamijka ka bacdina markaa baarlamaanka ay bilaabeen mooshin ka soo horjeeda isaga hase yeeshee mooshinka ka soo horjeeda isaga imika ayaa ka xoog badan kii hore oo hadda si la sheegay tirada ugu dambeysay ay marayso 190 qof oo ku jira baarlamaanka ka soo horjeeda isaga u diidan arrinta markay ka gaadho wax ku fiicneyd Jawaahir inaanu isagu qas bilaabin oo dalka u naxo oo sharaftiisa u naxo waa nin odaya waa nin sharci yaqaan waa nin badan soo shaqeeyay oo ixtiraam dadka ku leh waxaa ku fiicnaa markaa isaga lafta marka noocaas u galaa inuu marka arrinta ka gaadhay 190 qof oo ku jira baarlamaanka isay ka soo jeesteen inuu simbal sharaftiisa ilaashado oo markaa is casilo hawshii meesha ka wado wuxuu noqon lahaa markaa oday Soomaaliyeed soo halgamay macnaa in badanna ku jiray meeshan horena u ahaa rasa baarlamaan in badan ixtiraam lagu leeyahay asaada oo casiisay markaa sharaf bisin la saylis laakiin taa muu yeelino waxaad moodaa markaa inuu bilaabay furfur iyo waliba arrinta cajiibka la yaabka waxa weeye niman anigu isku sheegaya maxamed wax loo yaqaan mucaarad laakiin anigu waxaan u arko inay yihiin danaystayaal gaar ah oo ragga qaarkoodna ay yihiin rag barnaamijka doonayay qaarkoodna wasiiro doonayay markay waayeen dowladda qasku bilaabayo oo magacyadoodana la wada yaqaano ayaa maanta ragga daba taagan maxamed ninka loo yaqaano Jawaahir marka qof kasta oo Jawaahir u arkaya inuu saxsanayna markuu mahad salaad ama fiqi ama odawaa ama rag fara badan noocaas oo daba taagan soo daba ordaya waa fayar waa marka arkaan nin walba uu arkaya markaasi inuu Jawaahir khaldan yahay oo khalad gaar u socdo aan ka dhaxgalo kulley waxa weeyaan dadka aad tirisay imika waa dad xildhibaano ah wax cadeynayna ma hayno oo inay Jawaahir iyagu de support gareynayaan waxa meesha ku jira oo ugu muhiimsan waxa weeyaan aadanow ama xildhibaan baarlamaanku wuxuu leeyahay nidaam iyo qawaaniin la maro baarlamaanku haddii gudihiisa wax ka dhacaan gudi baarlamaan waxaa jiro aqal sare la yiraahdo aqalka sare isaga gudihiisa kaalintii uu ku lahaa bulshada maxaa gabay aqalka sare waxaan ognahay waxaa ku jira dad badan oo muwaadiniin ah oo ay wadanimadu biyo dhigatay oo Soomaaliyeed iyaga laftooda maxaa u diiday inay soo kala dhex galaan ama awoodooda horta waa maxay bal noo qeex aqalka sare awoodooda horta maxay tahay absan horta waxaan leeyahay Faisal aqalka sare wax weyn badan aba waa aqal dhawaan la sameeyay oo badan ka kooban xildhibaano badan oo ragna ay yihiin rag expert oo diyaar qoraa ragna ay kamid yihiin raggii hore ee siyaasiyiinta ahaa xildhibaan maxamed cabdi xaashiba ya maxamed xaashiba ninka gudoomiye ah laakiin soo sheegtay waa runtaa doorkoodan ciyaaraan oo dhaxaad galaan oo loo baahnaa laakiin way sameeyeen taas Faisal soo muujiye dhowr casho ka hor wada weyd inay guddigaan u saareen oo ay guddigaasi aynu ahayn guddi markaasi dhaxaad arrinta noqonaysa anigu guddigaa marka waxay ku dambeyn karaan laakiin waxaan maalin ka hor maqlay inay guddigaasi arrintii ay socon weydii way ku fashilmeen waayahay waynu ka gudbaynaa nimankan aqalka sare waxa weeyaan wadanka wuxuu leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare nidaamka jira ama awoodeed ee military ama wadanka marka laga hadlayo maqaamka ugu sareeyo madaxweynaha ayaa maftaaxiisa haya hawshani waxaan ogeyn sabtidii hore in loo balansanaa in mooshin la keeno watii madaxweynaha arinta uu ku gabraartay oo uu u yeeray ra'iisul baarlamaanka afkiisana uu ka sheegay in asaga madaxweynaha wada hadleen hawshaasi maxaa haddana dib
u keenay in ay haddana laablakac iyo in laisfahmi waayo iyo turxaan kale iyo maxaad u malayn kartaa marka laga yimaado huuhaada iyo qof walba siduu jecel inuu u fasirto marka laga yimaado maxaad u malayn kartaa waayo Jawaari saad sheegtay waa nin oday ah waa nin soo shaqeeyay waa nin muwaadin ah waa nin aad loo garanayo inamadaana adeer u ah madaxweynaha iyo wasaaraha wada adeer ugu beegan inamadaasi iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka in fiitu kala dhex mirato oo isfahmi waayaan maxaad u malayn kartaa marka huuhaada laga yimaado horta wax weyn gudoomiye Jawaahiri ciidamada loo jeedinayo waxaa ka mid ah in shuruuc badan oo loo soo gudbiyay baarlamaanka oo ansixin waayey oo ka mid yihiin matalan guddiga amniga ama guddiga musuqmaasuqa oo kale oo la doonayo in magacaabo hore la magacaabo in arrinta noocaas waxba ka qaban kari waayey waxaa kaloo lagu eedanaya lafteeda iminka soo baxaysa in xildhibaan maaragtay ninkan baala hanti dhowraha qarankana hadda wax la soo saaray report cusub uu leeyahay hanti badan baa luntay oo si la doonaya loo adeegi waayey ama xataa baarlamaanka la soo dusay waxbaa laga qaban kari lahaa laakiin lacaga badan oo la noonsaday ayuu mas-uulkii ay soo dadku qaar ay leeyihiin kastoo caddeynteeda loo baahaya in la keeno xildhibaanada ay soo gudbiyeen waxaa leeyahay hanti dhowr la soo gudbiyey waxaase meesha ku jirta oo aan marnaba laga leexan karin Jawaahiri isagoo wuxuu soo shaqeeyay dowladii hore musuqmaasuq ahaa oo lacag xun iyo istamarays lagu bartay oo aan garayno dowladii hore meeshay taagnaayeen oo xataa xildhibaanada qaar ka mid oo taqaani gabar loo yaqaana Khadiija afkana ka cadaysay oo tiri dowladda ka horreysay lacag marka la helo xataa bangi lama gelin jirin la qaysan jiray wala kala carin jiray kuwaas wax xusuusta markaas markuu xildhibaan ka mid ah xildhibaanada wasiira uu sheego dadka hortooda ka cadeeyay inay jirtay hore u shaqayn jireen in dowladii hore dowladda musuqmaasuqa oo lacag qaadan jiray ahayd laakiin farmaajo loo yaqaano Jawaahiri oo ahaa nin la soo shaqayn jiray dowladaha noocaas ee musuqmaasuqa dee aan hore u naqaanay la jaan qaadi kari maayo dowlad transparent ah oo si fiican u shaqaynayso oo caalamkii maanta u ictiraafay dowladda inay tahay dowlad si wanaagsan u shaqaynaysa caddaynta Kenya taana waxaa ka mid ah tusaale ahaan 2017 December UN2 waxay caddaysay IMF waxay caddaysay in dowladda madaxda ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre wasiir maaliyadda ka yahay Bailey in la siiyey certificate caddayn ah oo caddaynaysa inay dowladdaasi tahay dowlad transparent muddada ay shaqaynaysayna ay tahay muddo macnaha loo arin karo inta shaqaynaysa waa dowlad musuqmaasuq aan shaqo ku lahayn isla markaana laga aqbalay xitaa lacagtii $5 bilyan ahayd deyntii Soomaaliya lagu lahaa in qayb ka mid ah laga joojiyo iminkana waxba caddaynaysa caddayn ahaan kugu hayaaba saxiib hadda ugu dambeysay ahayd January ilaa iyo marka Abriilna wuxuu soo bandhigay prime ministerka arkaysa in wasiir maaliyaha Bailey oo aad u shaqeeyay inay 43 milyan $40 $44 milyan iyo badh inay soo bandhigeen ilaan 4 bilood ugu dambeysay 3 bilood ugu dambeysay lacag saan qabanay ayamta shuruudaha waxa weeyaan waan dhaafnay marka dowladda horta noocaasi waa dowladda saa u shaqaynaysa marka Jawaahiri iyo ragga daba yaacay laba jaan qaadi kari maayaano nimanka musuqmaasuq iyo isticmaalin bartay dadkii waa niman daacad u shaqeynay marka nin daacada iyo nin dalaala bartay si uu shaqeyn wada qanas waa hagaag qodobka koobaad ee barnaamijkeena maanta ayaanu doonaynaa inaynu soo gunaanino xildhibaan aadan waxa tahay muwaadin Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed halkan ka daawanaya Airo TV iyo aaladan Facebooka waxay u jeel qabaan inay helaan dowlad caadila waxay u haraadan yihiin inay helaan nidaam iyo kala dambeyn waxay u taagan yihiin inay wadankooda muruqooda iyo awoodooda iyo ciidkoodaba ay dib ugu noqdaan haddii markaa maalin walba ay madaxdii Soomaaliyeed ay saa u durdurinayaan da'yarta dibadaha ku dhibaataysan hooyooyinka dibna ruuga caadaystay aabayaashan gidaarada taagan ee intaaba u diyaar oo inay wadankooda ku noqdaan maxaa la gudboon haddii arrintii ama halkay ku noqon lahayn ee noocaa tahay waxaa qodobkan ugu dambeeya ee aad ku soo gunaanadaysa oo tala maxay tahay haween faysal waxa weeye horta markuu doonayo xalka in raadiyo waa in runta laga hadlaysay tahay waxa weeyaan nin musuqmaasuqa xildhibaan beri hore musuqmaasuq ku noolaa oo laba naagood lahaa oo naagna ay joogtay meesha loo yaqaano Kenya u joogtay naagna xamar u joogtay guryaha musuqmaasuqa iyo muusha ku dhisin jiray horta marka la yiraahdo meeshii wax ma jiraan saddex kun qaadanayo horta nin joogsanaya ninkii ma aha mar walba rabshad doonaya dhinac kalena dad wani ku sheegay kula qayb kamid ah Soomaali badan waxa jirta dhowr badan dowladda haysta
asindooyin beer haysta oo marnaba aan dowlad soomaaliyeed oo xaqa oo cadaalad aan ogolayn dadka noocaas oo kale ah marka ama dhul beero dowladaha haystaan ama beeradaha shicbaha haystaan dadkii noocaas ee xaaraanta kusoo koray aan doonin haba yaraatay dowlad soomaaliyeed oo xaq ay timaado xildhibaan markaasi isagu laba naagood ama saddex naagood ku kala qabay waddanka oo lacag badan oo beenbeena ku haystay meesha marna kiini u dhoofi jiray markaa u dhoofi jiray marka lacagtii noocaas laga joojiyo oo arkay meesha inay bilaabahashi tahay ama qaarkoodba ay doonayeen inay prime minister helaan ragga meesha ku jireen qaylinaya oo ka mid yahay haddaba magacaaba fiqi oo kale waa ragga ku doodaya in prime minister la doonaya la siiyo oo ku dagaalamaya gacaniya birba ku dagaalamaya dadka noocaas ah marka ee dowladda lagu haya ee qabsanaya ee rabshadii buq ku haya dadka soomaalida waa inay ka nirjaan maaha waxa weeyaan dadkeena waxay doonayaan inaanay dowlad soomaaliya yihiin ama curyaamiyaan waxay dar ku jirtaa dadka noocaasa in meeshu bilaa dowlad noqoto marka shacabku waxa weeyaan 90% dad fiican baa jira baarlamaanka dad 80% dad fiican baa ku jira 20% baarlamaanka ku jira khariban dadka maartay Soomaalida ay khariban lamidka dowladii cagaa haysta ee madaxweyne cagaa haysta dadku waxa loo baahay inay fahmaan dadka noocaas iska qabtaan laakiin inay jaalma su-aasha ugu dambeysay aan qodobkan kaa weydiinayo xildhibaan waxa weeyaan adigu waxaa tahay xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha waddankan ingiriiska waddankan ingiriiska dhaqaale aad u tiro badan ayuu dowladda soomaaliya ku caawiyaa ciidamo tababar badan ayuu siiyaa agabka ayuu ciidamada ka caawiyaa waxaad la socotaa inay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo adigoo kale oo xildhibaano ka ah waddankan inay xiriir la leeyihiin dowladda ingiriiska sidii horumar loo gaarsiin lahaa waddanka soomaaliya waxyaabaha markaa aad kala hadashaan inta badan oo ku salaysan nidaamka loo marayo ama dowlad wadaagga ee aad dowladdan la talinta aad ka siisaan maxaa ka mid ah adoo shacabka usoo bandhigaya horta wax weeyaan marka hore waa in sharcigu dadka ka sarreeyaan waxaad moodaa markaad tusaale ahaan markaad eegto waad baarlamaanka soomaaliya markaad eegto in meesha taalo mid u taag dadka sharciga way yaqaanaan laakiin dad dana gaara ku jira oo xildhibaano ah oo dana gaara meel kale u caddahay ayaa doonaya inay meeshii kharbadaad iyo qaska wadaan iminka waxyaabaa la yaab kale aad maanta arkaysa cabsaan waxaa ka mid ahaa faysal waxaa ka mid ahaa in dembigii maanta uu kusoo biyarugtayba jawaahir iyo raggii la socday mahasalaad iyo fiqi ay ka mid ahaayeen taageera sanaasi inay iyagu yihiin dadka rabshada wada caddayntii waxa uu keenay oo aan halka ku caddayn karaa buruuf ahaan waxa maanta shir jiraad qabtay oo aad qofka bala socdaa gorad oo ah taliyaha ciidanka qaranka iyo ninkii ciidamada booliska haysta iyo ninkii ciidamada asluubta haysta saddexdood dhinac fadhiyaa meesha soo fadhiista dadkii bay la hadleen waxay dhahdeen ciidamadii maanta meesha qabsaday ee meesha tegey annagu shaqa kumaanan lahayn waa ciidamo ay jawaahir iyo ragga dabayaacaya meesha ay baarlamaanka ku qabsadeen marka ninkii booliska u hadlayay wuxuu yidhi annagu awood waan lahayn inaan kaga saarna meesha laakiin qof soomaaliya inuu meesha ku dhaawacmo ama ku dhinto ayaa annaga nooga culays badan intaan xalilahayn sidaa daraaddeed waxaan dadka soomaalida u sheegaynaa arrintaa meesha ka dhacday inuu ninka laa jawaahir iyo gurubka la socdaa ay mas-uulka yihiin annaguna aanu arrintii dabagelino aan baarino taa wax kutusaa markaasi in maxamed farmaajo uu isku dayay hadda ka hor dhowr casho ka horna inuu la hadlo jawaahir la hadlo uu yidhahda odaya iyo arrintan deji macnaheedu yahay arrintan inuu dejiyo jawaahirna waxa weye in ka badan wuu haystay oo barlaan buu ahay odaynimo hadduu doonaya waxay yidhahda wartaadeen boqolkiiba qof ay diidan yihiin anigu waan baxaya maca salaam yimaadeen wada la shaqeynaya ma odhantaa laakiin jawaahir inuu khalday waxa kale aan ku caddaynaya professor axmed saciid matal waa nin aqoon-yahan oo professor aada loo qadariyo isla markaana gudoomiyey doorashada soomaaliya dhacdayna ka ahaa cabdisaad matar wuxuu afkiisa ka qiray inuu jawaahir ahaa nin yahay nin beenlowga oo laftiisa xataa been u sheegay marka uu jawaahir aanu ahayn nin weyn oo sida dadku u arkay aanu ahayn habeeraate caddayntuna ay tahay bal anigu aniga dhegeysanaya dadka daba yaacaya ee u doodaya oo aad garanaysa dadkii lugaha dowladda yahay inay yihiin halkaas ay ka caddaynaysa markaas waa hagaag qaybteennii hore ee barnaamijkeennii maanta amuuraha carre edeg ayaanu intaa kusoo afmeeraynaa waxaynu u gudageli doonaa qodobka labaad intaynan qodobka labaad u gudagelin waxaan doonaynaa inaan idin xasuusino qarannimada waxay ka kooban tahay ama sideedaba ay tahay wadal iyo dad iyo dowlad waxa weeye dowlad aan dal lahayn ama dowlad aan dad lahayn ma jiro dadku waxa weeyaan waa halbowlaha qarannimo bulshada soomaaliyeed ee u badan dhallinyarada iyo haweenka ee dibadaha ama gudaha ku nool waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan inay difaacdaan qarannimadooda ma ahan waddankan farmaajo xasan cali khayre gudoomiye jawaare ma laha waddankan waa waddan soomaaliyeed waa waddan u baahan talo iyo arin iyo maskax
iyo cilmi Soomaaliyeed wadan u baahan weeyaan wadankeena waxa hagaajin kara oo wax ka qaban kara waa inaga gaar ahaan waa daayarta la doonayo ama loo leylinayo inay mustaqbalka la wareegaan dhulkooda qodobka intaas aan kaga baxaya qodobka labaad aadan aan kugu soo noqdo mar labaad adigoo mahadsan Soomaaliland ayaan u galeynaa ama gobolada waqooyi 1991 aan yar ararto burburkii Soomaaliya ka dhacay waxa dhacday wax loo yaqaan balaayo buurkayga ka galay nin walba waxa uu holeelay ama uu qabtay halkii uu asalkii ka yimid waxa dhacday Soomaaliland dadka ku noolaa ee gobolada markaa deganaa inay heleen nidaam ay markaasi ay islahaayeen waxaad kaga badbaadi karaysaan walahooga ama dhibaatada ka jirta markaa qarankii Soomaaliyeed nidaamkaasi ma ahayn sida maanta uu u muuqdo ama loo dhigayo ma ahayn waxa ugu mugweena ama ugu qaran weena wuxuu ahaa in laga badbaado dhuljiifka iyo daydayga iyo jirriga iyo mooryaanka in laga badbaado oo dadka gobolada waqooyi ama shanta gobol waqooyi ka tirsan tahay ama ay ka kooban tahay ku nool waxa ay isla garteen role modelka caruurtooda ama haldoorkooda inuusan noqon ninka aan soo sheegay ee dhuljiifka iyo daydayga ah dabadeed waxay ku guuleysteen in ay isu yimaadaan oo ay arrintaas isla gorfeeyaan shirkii ka dhacay magaalada Boorama 1993 iyadana waxa la isla garto oo mar kale la xoojiyay in mar kale hadana laga sii badbaado loona seete dheereeyo dhibaatooyinka wali Soomaaliya ka jira shirkaasi waxa ka soo baxay wax la yiraahdo xal ma ahane xul ma ahane waa xal xul ma ahane waa xal wax la yiraahdo shirka ka soo baxay arrimaha halka ka soo baxay waxa iyadana ugu muhiimsanayd in la sameeyo nidaam la isku laabxaado laguna gaaro mustaqbalka hanaan ama heykal dawladeed xilliban arrintaasi waxay dihatay ama dhashay xaaladaha maanta taagan maxaad waxay nooga sheegi karaysaa arrintii halka ka uunkantay ee nooca ahayd xul ma ahani waa xal inay maanta isu bedesho in dadka la caburiyo in shiraakado kale la keensado in caloosho shaqaystayaal la soo kireysto in wadamada jaarka la isku xuuxiyo arrintaasi maxaa u sabab ah ayaad malaynaysaa faysal aad iyo aad ma sabtahay waxaan filayaa si fiican background dadka ugu sheekaysay sida arrintu ahayd waxaan kalaan doonayaa background in yar ugu daro kale oo ah xataa marka lagu daro qoladii hubaysnayd ee asal tahay diyaaradii lafteeda baleenkooda markii hore ma ahayn waddanka in lagala jaro qorshuhu wuxuu ahaa keliya in waddanka markuu la saaro hadhow waddankii Soomaaliya sii soo noqdo laakiin sababta goosashada keentay keliya intaan shirka kusoo noqonin ka hor oo dadka aan u yar duceeyo waxay ahayd keliya markii Cali Mahdi Maxamed ku dhawaaqay inuu madaxweynaha Soomaaliya yahay markaasna qoladii SPN tahay iyo SNMta iyo qoladii kale ee markaa wada hadlaysay iyo USCU-ga ee markaa arrintan noocaas ay ka biyadiideen caradii taakantay degtiis ee baraashi lagu qabtay marka shir lagu qabtay 12 nin odaya ayuunbaa markaa shirka go'aamiyey keliya laakiin wax dadka waqooyiga dhan food laga soo qaaday ama la iclaan garay ama shir ballaaran arrinta lagu lafagurayana ma ahayn waliba marka la eego waxtaa dadkaa ka qayb galayna dad badan oo diidaya jiro arkaa diiday oo ka mid ahaa xusmaan kaluun waxaa ka mid ahaa dhuxul baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka loo yaqaano badraawi baa ka mid ahaa rag fara badan baa ka biyadiiday oo lahaa anigu soomaalinimaan ku dagaalamin markii hore aysan Soomaali ba ahayd dee maaha waddanka lagala jiro haddaba haddaan kusoo wada ragga meesha imika yaacaya uu sheegayo arrintan waddanka foosa ka dhawaajiyey ee ahayd in dadka Soomaaliland ama dadka waqooyiga wada noolaadaan oo ay dee inta waddanku degayna ay saa ku noolaadaan arrintii waxaa moodaa imika soo bedeshay arrin aftuub ah waayo imika markaad eegto labada xukuumadood ee tan iyo tii ka horreysay tii kasoo horreysayba waxaan u arkaa inay fashilmeen oo wixii loogu talagalay ay ku fashilmeen haddaan ka bilaabo markii daahir yaala kaahin wala uu ka nidaam fiicnaa kuwan xataa lagala wareegayay wasiir maaliyihiisa daahir yaala kaahin waxaa cawil markii lagala wareegaya meesha qasmadda lacag haba yaraata ku jirtay ma jirin shilin lacag kuma jirin lacag deena loo raacay haddaan ku tusa markaa dowladdii markaa riyaal ay gacanta ku inay dowlad faashil ahayd dowladdan dambe ee uu qabtay imika axmed maxamed sidaayna taa faashilka kasii daran tahay waxbay isku dayeen iyo waxbay bilaabeen inay dhulka iibsadaan oo dantii guud iibsadaan oo dekadii iibiyaan oo wax walba dee ay magaranaysaa waddankiiba xataa ay xaraashaan iminka markay wareejinayaan laftoodu waxaa la sheegay inaan qasar tahay lafteeda aan lacag lagu iman labadaa jeer wax kutusa markaas labada maamule aan ka sheekiyo horta inay nimankii fashilmeen waxa u fashilmeen waxa weeye markaa wixii dadka lagu sheekiyey wax meesha yaalla wax isqaadanaya maaha
oo tusaale ahaan markaad imika soo qaadato dalkani dee waa taqaana inta gobol wahan jir berigii hore dowladdii hore maxamed siyaad bare markay jirtay macnaha maskaxaada qaadan mayso inuu dalkii gobolladii intaa leega ee tirada lahaa ee gobol walba wuxuu jira gudoomiye gobol iyo gudoomiye degme keliya iyo degmooyinka gudoomiye degme haystaan kharashku ahaa kharash gaaban inta kale dowladda dhexay dadkii maamuli jirtay iskuuladii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii maamuli jiray wixii soo galay ee cashuura ahaa waxaa afku u dhiganaya keliya laba golo oo ah golaha guurtida oo 80 oday ah golaha baarlamaanka 70 qof ah wasiirada imika ay sameeyeen oo ilaa si la sheegayo magaasimeyaasha isku wada darbo ilaa 60 qof ah markaad eegto waxa markaad ku jabciso absalaan wax noqonaysa lacagtu waa ilaa 8 ama 9 milyan oo dollar bay noqonaysaa sanadkiiba intaa waxa uu sii marka ciidamadan ay markaa dhiseen iyo saraakiisha fara badan dalacsiin lacagta siinay marka waxa weeyaan tusaale ahaan fushq bashkiina waxa weeye dhaqaalihii soo geli lahaa cashuurta soo gelay gabigiisa waxa noqotay dhaqaale ay mushaar u qaataan kariya ragga wasiirada fara badan ay u magacaabeen oo aan loo baahnayn guurtida iyo baarlamaanka aan loo baahnayn maxaa iyo kuwa kale ay waxta gobolada magacaabay xataa dowladdii hore ee militariga ahayd gudoomiye gobol kale jiri jiray waxa magacaabay meel wax ka jira gudoomiye gobol iyo ku-xigeen gudoomiye degme ku-xigeen baa jira markaas cilmi baraka fara badan ku dhacay xagga maamulka laftiisu horta wuxuu keenayaa maamul xumuu keenayaa iyo dhaqaalo fara badan oo lagu lubanayo meesha oo imanaya markaa qayb ka mid a sicir barka fara badan ee iminka ay ka cabanayaan oo keenaysa qaybta dhaqaalaha burburka ah haddii ku noqdaftaa oo aan ku laabto xagga markaa laftiisa sicir barka laftiisa ay ka qaylinayaan ayaa kaa qayb ka mid horta waa qaybta labaadna wuxuu imanayaa waxa weeyaan waa taqaanaayo etoobiya qaadka soo gala waqooyiga ama somaliland ee ay lacagta karansiga rasmiga ay bixiyaan ee lacagta sanadkiiba gala etoobiya waa lacag ilaa 500 milyan oo dollar lacagta 500 milyan oo dollar 500 milyan oo dollar lacagta dhaqaalaha intaa leeyahay waa lacagta ay ku doodayaan qolada meesha joogta maanta ay leeyihiin 450 milyan oo dollar ay kadib berbera lagu maalgelinaya ilaa 3 sanadood ah macnaha waxa weeye sanad keliya lacagta qaadka ayaa ku filan in maalgelinta dubay u sameynayso 3 sanadood ay ku maalgelin karaan iyagoo keliya ku maalgelin karaan lacagta jaadka reeban taasoo midda kale meesha taalla waxa weeye waxaaba sicirka bara kenya kale wax ka mid ah lacago fara badan oo been abuur oo fara badan soo daabaceen oo waddanka ku sii daayeen oo aan xad lahayn shirka somaliland oo ahaa shil aan meel wax weyn ku dhaafin oo lacagta waraqad iska banaan ah oo dee aan cidna ictiraafsayn oo laftiisu dhibaato kale ah laga imanaya musuq maasuqiyo fara ka baxay iyo weliba iminka taas oo sii dheerta iminka soo gashay qolada loo yaqaan dubai world oo iminka bereela wareegtay muddo sanad ah oo sida la sheegay aan horumar badan aan mashaariic badan ka muujin meeshii laakiin dowladdii hore ee soomaaliya dhistay keliya manaafacaadsanaya oo sheerkooda qaadanaya oo iyaga laftoodu sida dadka berber sheegayaanba markay tahay maqribkii ama galabtii tahayba magaalada berber laga soo aruurinayo doolarkii oo iyadoo ay qaadanayso in la dubay loo dhifinayo marka doolarkii dhinac wax ka baxaya berbera doy walba qaadanayso doy baa la geenaya dhinac alaaba laga soo iibsanaya doy baa la geenaya dhinac etoobiya la geenaya etoobiya qaadanaysaa dalkii dal wax soo saar le maaha oo beera iyo warshada le maaha etoobiyada iyo maaragtay iyo dubayda ayna inay wax isdhaafsaan bay ahayd wax isdhaafsanayaan ma jiraan wax la isdhaafsan ma jirto caalamka waa taqaana imika china iyo maraykan maanta wax isku haystaan adiga waxbaa iibsanaysaa iyo waxbaa iibsanaysaa wax isdhaafsano haddii qofka bilaada wax sheegtani waayo oo noqdo wuxuu foosto meel ka daloosho keliya oo adiga keliya lacag laga qaadanayo dee waddanku baaba'aya markaa marka tani waxay noqotay markaas waxaas afaktirisay oo aan isku soo buriyey markaa waxa markaa meesha keentay markaa qarax meesha inuu qarxo oo loo caali waayo oo ay dhahaan sicir barar baa jira oo ay keentay duruufaha iyo arrimahan ka hadlayo meesha yaalla waa hagaag daawadayaasheeda qadarinta leh ee nagala socdo airo t v iyo aaladda facebooka waxaan u sheegaynaa inaynu ka hadlayno amuuraha carre edeg ama geeska africa 3 qodob oo kale ah arrimaha siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan magaalada muqdisho waxaa kaloon ka hadlaynaa xaaladda siyaasadeed iyada lafteeda dhaqan iyo dhaqaale ee somaliland ama gobolada waqooyi iyo qodobka ugu dambeeya oo ah isbedelka siyaasadeed ee ka curtay ama ka dhacay waddanka etoobiya qodobka somaliland maan dul taagana aadan waxaan doonaya inaan wax kaa weydiiyo dadka aad imika ka hadlayso waxaa jiro waxyaabo aanan inta badan hoos loo eegin oo soomaalidu inta badan aysan ka doodin 5 gobol ee somaliland haddaan niraan ama ay ka kooban tahay waxaa ku dhaqan ama degan waa dad dhal iyo dhashid la yiraahdo waxa weeyaan waa walaal iyo waari dadka meesha ku nool shirkii ka dhacay burca iyo kii boorama ka dhacay iyo mid meesha ka dhacayba ma jiro meel lagu iftiimiyey ama lagu jaangooyey mustaqbalka dhabta ah ee dadka somaliland wada degan ay yeelan doonaan meel lagu iftiimiyey ama lagu sheegay aayatiinka halka maanta la joogo halka looga guurayo ilaa waxa weeyaan aqoontu ama aqoonyahanka wuxuu darasayaa
siyaasadda maanta taagan berri halka la aadi doono. waxaa kaloon jirin afti laga qaaday dadkani inay somalilan horta doonayaan iyo inaysan doonaynin. waxaa jira waxyaabo badan oo isku dul hoganayo oo dadku inta badan ay isweydiiyaan. waxaa ka mid a markaa inta hadda aan ka soo hadlay kow, waxaa kaloo intaa usii dheer waxaa jira wax la yidhaahdo wada lahaanshaha nidaamka dowliga ah ee somalilan, isaguna waa mid meesha ka maran. soo maad garan, waad og tahay dadku waxay u kala fadhiyaan awdal state oo gooniya, gobolada dhexe oo gooniya, maakhir oo gooniya, khaatumo oo gooniya. dadkaasi waa dhal iyo dhasheed. maxaa diiday in dadkaasi sida dhabta ah ee walaalnimada ah ee wada xaajoodka soomaalinimada ku dheehan tahay inta isu yimaadaan inay wada yeeshaan wixii ay 60kii wada lahaayeen? faysal horta waad mahadsan tahay. horta waxa weeye markii wuxuu dariiq khalada maraan dhibaatooyin fara badan iyo khalaad badan bay imanayaan. waxa weeyaan anigu khalaadka ka wada waxa weeyaan dadkan waqooyiga degan aniga kasoo jeedna labadaba markay eegto siyaasiyiinteeda meesha jooga waa siyaasad fashilan weyn, way fashilmeen weyn. waxa ku fashilmeen waxa weeyaan horta marka ugu horeysa weeyaan jaanisyo badan oo iyagu ay lahaayeen way lumiyaan. oo marka hore weeyaan dabka xooggan wax ka soconayay Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya oo ay badan ololeysay oo dad Soomaalida shacabka Soomaaliya isku leeyahay ku dagaalamay iyaguna ay nabadgelyo in badan ay ku leeyihiin. wax xaq u lahaayeen marka iyagu inay dhexdhexaadiyaan oo ay koonfurta Soomaaliya qabtaan oo walaaleeyaan oo ka qayb galaan baaxid oo dadkii isu keenaan. taa marka horta magac bay ku leeyihiin uma yeelin. waxay noqdeen markaas kaliya inay meeshooda xidhaan. waxa kale iyagu laftooda dadka waqooyiga ilaaween in markii xitaa dowladda militariga la dagaalamayay ay iyagu dagaalamay laftooda in askar badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya inta la dagaalantay dadka shacabka dhibaato geystay maane in qaar kale oo ka mid ah fara badanna ay dagaal ka baxeen iyagoo dadka waqooyiga caawinaya. qaarna waa dadkii dagaalamay dadka laayay ee dhibaatada geystay. qaar kalena waxaa dad fiican oo ay ka mid ahaayeen ninkii pilotka dejiyay diyaaradii Djibouti oo kaleeto ama askar badan oo Soomaaliyeed oo degan xataa waqooyiga oo isku dagaal ku baxay. dadka marka qaarkood waxay leeyahay haddii marka dad badan koonfurta aan alliance la sameeyeen waqooyiga Soomaaliya ku soo qaadan marka soo qaadan Jamal Caydid oo kaleeto marjees oo kale gacan bay ka geysteen macnaha inay la shaqeeyaan macnaha asal ka dagaalaysa meesha. dadka noocaas kadib marka ay gacan ka geysan lahayn bariga oo aanay marka askartii gudaha ku jirtay aan ka bixi lahayn dagaalka waqooyiga marka in badan buu qaadan lahaa ama dad badan wax baa bilaama ama guusha ay marka sheeganayaan may gaareen. marka horta waxa weeye marka ugu horeysa waxay marka dadkii ay lumiyeen inay fahmaan doorkii ay ka ciyaareen askartii faraha badneed ee ka baxay dagaalka iyo dadkii Soomaaliyeed kuwa ay u arkeen kuwa kale ee ficnaa ee diidana ka soo jeeday dagaalka ku socday. taas mid baa mid kale qodob kale labaadna waxa weeyaan iyagu waxay xaq u lahaayeen waxay quwad ugu weyneyd markii burburka Soomaaliya dhacay Soomaaliya ugu dabadamay markaas oo waliba jira cadin ay gacan saar lahayn oo aysan faraha waxay xaq u lahaayeen markaas inay ciidankooda dhaqaajiyaan oo sidii tusoo kaleeto si easy ay xamar ku galaan oo ay markaa qabtaan maamulkiina qabtaan dibadna markaa iyagoo wada jira dadkii macnaha lagu tumahay inay soo halgameen iyo kuwa kale dadka dee isku fahamka oo dhaba in shir loo qabto oo markaa dowladdii sidaa loo qabto taana way waayeen oo jaanis waa lumiyeen. qodobka ugu dambeeya saddexaad waxa weeye ay lumiyeen wuxuu ahaa inay iyagu waxtaa laftooda haddii ay xamarka ka maagaan ay si kursomeegaan ugu magacaabaan dowladdii inay ka dhisantay Soomaaliya Hargeysa oo ahayd caasimadda Soomaaliya oo markaa international community ay gacan ku geysan lahaayeen Soomaaliya markaa ciidamada lagu dhisi lahaa duwaysin u sameyn lahaa halkan ay faa'iido fara badan iyo wanaagsan iyo dadka Soomaalida waliba ay sharaf u hayn lahaa ay sameyn lahaayeen. taasi waa qodobka shanaad ee kale ee meesha ku jira wuxuu ahaa inta marka laga baxo xataa waxa xaq lahaayeen inay markii dambe xataa bariid dambe xataa dowladda xamar ay xataa ay suugaan kala sameeyay inay xataa markii negotiation la galaan oo xataa ay caasimadii qaataan oo markaa qayb galaan waxaas horta jaanis ay lahaayeen ay lumiyeen. maanta ka hadlay marka bisha marso oo dadnimo ku dariiq khalad ay mareen wax dariiq khaladkii mareen waxa weeye waxaan suuragal ahayn in qofku bini'aadam ku adkaysto waxa weeye waxa la malaysaa waxa weeye ceeb iyo fashil ku dambeynaysa. waxaan ognahay goosashada ay Soomaaliland ku soo timaad ama waqooyiga ay ku dhawaaqeen oo talaadkii sanadooda in boqolaal goor African Union ku ay u diideen oo yiraahdo wax suuragal ma aha laba aqbalayo saacada aragta ay diiday oo ay ka qayb galeen oo ay la horfariistay oo la diiday iyo nashinku ay diiday international community kale European ay diideen intaasoo jeer loo diiday way ogyihiin. marka haddii qofka bini'aadamka wax aan suuragal ahayn oo qalada uu ku adkaysto ilaa waan socodsiinaya darbigaas madax u garaac yiraahdo wuxuu la imanaya waa fashil fara badan weyn. waxaan ognahay markaas
in somalilan ay ahayd meel go-doon ah oo caalamkii aanay maalgelin lagu sameyno waddankii aan la maalgelin waxay somalilan ahayd meel un aanay dhaqaalo badan gelin marka waddankii markuu caynkaas yahay oo isku meeraystaan iyo dhexdoodii marka wax noqonaya markaa inuu fashil ku dambeeyo usaad maanta arkayso sicir barar musuq maasaq iyo boob in la boobo iyo inay dekadii dhammeyd ee hantidii waddanka ee la yaqaanay iyo airportkii Ethiopia laga jabiyey ee ugu weynaa ee Afrika si dhib yar cadawga lagu wareejiyo lacag laga qaato waxaas wuxuu tusaa markaasi inay fashilmeen waa hagaag haddaan fashilka ka nimaano aadanu xildhibaan aadan mar kale waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan aan ku faaqidayno amuuraha carre edeg oo aynu kaga hadlayno qodobo xasaasi oo ka taagan geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaaliyeed weli qodobkii gobolada waqooyi ama Somaliland baan dul taaganahay Soomaalidu waxay tiraahdaa fallaari gilgilasho kaaga ma hadho waxa weeyaan Somaliland waxaa ku nool dad muddo kale ah oo hal abuur leh oo cabqariyiin ah oo magac iyo maqaamka kule bulshada Soomaaliyeed gudaheeda waxay leeyihiin culimo waaweyn waxay leeyihiin abwaano waxay leeyihiin dad mataqaana wax laga hibaysto dadkaasi maxaa ka indhasaabay wanaagga iyo walaalnimada iyo wax wada lahaanshaha inay inta usoo bambaxaan ay ka hadlaan oo ay badbaadiyaan walaahoogan iyo tahriibkan ay dhalinyartooda caadaysteen faysal ma tahay horta arrinta waxaan kala qaaday dhowr qaybood horta culimadan ka hadlay marka hore culimada Somaliland degan waxaa lamid culimada Soomaaliya tahay culimada horta culimada berigii hore maaha culimada berigii hore aan culimada markaan berigii hore dhaqaale lahaan jirin waxaa jiray culimo dhiirin waxa ka hadla laakiin culimada imika dambe waxaa noqday culimo ku milmay dhaqaalihii meesha iyo ganacsigii marka ganacsi ku milmo qofkiina Soomaaliya ku dhexgeliya horta marka culimada doonaysaa horta waa culimada noocaas maanta waad arkaysaa Somaliland ama qoyska Soomaaliya nin sheekh ah oo soo taagay oo Ilaahay dartii u hadla waxa jira hal kaliya oo loo yaqaan sheekh sunni oo maanta isoo xiran oo isagoo Ethiopia cambaariyay gelinka koradan imika cabdi ilina cambaariyay xabashidan imanaysa Somaliland cambaariyay ninka noocaas uu xirayay maanta sheekh kale oo maanta si toos ah u cambaareyn kara ma jiro waxa shuyuukhda mudooni hebel yiraahdo laakiin wada garanaysa kulli waxa hargeysa joodan waa shuyuukhda waliba ka dhageystaan TV dhageystaan markii hadlaya sheekh waliba hadlayo wuxuu ku soo qadarayaa asxaabtii hore waxay tii inna maxamed wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala halkaas maanta ka hadlayaan ummadda Soomaaliya hamidoodu iyo hal hadlo ku meeraysanaya laakiin wax meesha yaala iyo dibka yaala iyo dhulkan Soomaaliyeed ee la dhaxal wareejinayo Ethiopia loo dhaxal wareejinayo Imaaraat loo dhaxal wareejinayo dibka inta la yaalo ama airport xitaa booyinaan ka shaqeeyay ku noqon doona imika ee yaala ee doonay in xuduudintu laga weeraro dibka keeni kara ee Britain raas dhacaysa dad Yemen Soomaaliyeed dad Yemen oo walaal lagu weerarayo dhibaatada inta la kama hadlayaan weli wada fadhiyaan anigu sheekh hebel oran maayo waa taqaano kuwa ku dhageystaan maalin meeshaas ka shurti shuuq doorto saas noqday waxa ku yimid dhalinyarada ku timid waxa jira nin absalaan wax soo qaadaya Faisal tusaale nin baa jira ruush ah oo bari hore u shaqeyn jiray KGB ruushka ajida badan dad halka ku jira ay daawadaan ka hadlay ninkaas markaa wax markii dib u wareey Canada ninkaas markaa wuxuu ku dooday wuxuu yiri falsafad bay isticmaalaan buuri ruushka iyo Chinese oranaysa dowlad quwad leedahay macnaha kula dagaalamay quwad laakiin maskax kula dagaal markaa wuxuu yiri falsafada ruushka bariga keenay ama Chinese keenay Chinese soo xilifay laakiin ruushka markii ba qaatay waxay oranaysaa buuri waddanka cadow kuga ah ka soo jeeda hadda dowladda kale cadow tahay isku day inaad dhalinyarada maskax ka bedesho dhalinyarada maskax ka bedesho inaad wax barasho dhex gasho inaad bulshada dhex gasho in dadkii ku haystay cadowga markaas aad ka dhigay saaxiib maanta waxaan arkaynaa falsafada noocaas in dalka Ethiopia qaata marka waxay dhahay falsafada noocaas kala taana waddanka dhalinyarada falsafada noocaas muddo 15 sano ilaa 20 sano ay qaadanaysaa inta ku guuleysanaysaa noocaas oo generation ka cusub ku bedel karayso sax tusaale aan ku soo qaadanaya marka falsafada noocaas baa Ethiopia qaata Somaliland ama gobolka kamid ah Soomaaliya kalaba arrimaha maanta Ethiopia qaatay maxaa kamid ah arkaysan waxa kamid ah arkaysan Facebook badan dhalinyaro badan qaarkood laga yaabaa ka soo gaabay marka oo markay hadlayaan waliba Soomaaliya u badan oranaya Ethiopia walaalanahay inan ka yar markaas waa inan yar oo madaxda meesha joogtay Soomaaliya fadhida maanta ay markay khudbada akhrinayaan ama markay TV ka hadlayaan ama iskuulada ka hadlayaan ay ugu sheekayaan in Ethiopia ay walaal yihiin oo isagoo horta qasaab ku qaatay koo
laba markii dambena cadow looga dhigay soomaalinimadii garab ka dhigana cadow looga dhigay arrimaha noocaasna Ethiopia ka faa'iideystay oo markii dambe ay geysay iskuulo luqadda lagu dhigo oo maanta boorama iskuul luqadda ku yaala manhajka Ethiopia oo Soomaaliland lagu dhigo manhajka Ethiopia lagu dhigo iyo waliba luqadooda xabashiga ah oo iskuulo boorama iyo hargeysa ku yaala lagu dhigo waan la sheegay bulshada noocaas markii Ethiopia ciyaartay oo security ay kusoo maartay kusoo riixday xaggii Soomaaliland ugu badiyay maanta jooga dhalinyaradii generation cusub ahaa bariga hore dowladii hore Soomaaliya aniga kusoo koray lagu aabin jiray Sayyid Abdul Xasan baa geesi ahaa Axmed Gurey baa geesi ahaa dhulkiina Soomaaliya baa la qaatay cadowgiina Soomaaliya waa cadowgiina wax weyn waa Ethiopia Sheekh Bashiir Farax Umar ragii noocaas ah noo sheegi jiray dhalinyarada noocana iskuulada lagu dhigo waxyaraatay waxa lagu dhigaa kaliya colaad ama Soomaaliya loo gelin ama arrimo kale to marka la hadlayna wax laga hadlaa in Ethiopia ay walaalo tahay marka bal adu qiyaaso bal waa dadka daawanaya way daawadaan way arkaan Facebook dhalinyarada ugu badan ugu cayda badan waa meesha aniga ka nimid aniga Facebook ka soo jeedin qoyska Soomaaliya ama Somaliland waxa keenaya waxa weeye for the last 15-20 years ugu dambeysay ayaa lagu guuleystay in falsafad laga raadiyo Soomaalinimada iyo jinsiyadda laga dagaalamayo oo marka Ethiopia lagu walaaleynayo oo saa darteed yararka dhalinyarada markay halka ka hadlayaan ay mar walba ku hadaaqayaan oo qofkii doonaya ay ku oranayaan annagu Ethiopia aan walaalnahay ku doonayna Soomaaliya waan ku nacnay macnaha waxaas waxa weeye wixii laga bedel maskaxda waa hagaag marka ma waxaad leedahay da'yartan reer waqooyiga ah inta ma wada aha laakiin qayb ka mid ah oo social media sunta ee aaminsan Ethiopia inay walaal yihiin aaminsan Ethiopia inay ka baadsiisay aaminsan Ethiopia inay wax bartay yacni noloshoodii oo dhan u hibeeyay Ethiopia marka ma waxaad leedahay waa qayb ka mid ah yacni arrimaha loo caalayahay meesha ka taagan horta waxa weeye maamulka meesha ee arrintaas helay wuxuu sahlay waxa weeye safaarad ana bariga hore ku soo baan lahayn Soomaaliya qusulid marka dhulka Soomaaliya marka la haysto qusulid loo qaadan jirin fiisi sax Soomaaliland dhibaatada keentay waxa weeye hore u jiri jiray waxa weeye dowladda hore Soomaaliya dhulka Soomaalidu ay leedahay laga haysto dhul la ictiraafsay looma arko xuduudna ma lahayn Soomaaliland marka iyagu waxay ictiraafeen dhulkaas Ethiopia leedahay markaas Ethiopia xabashida ku dhiiratay oo ay qusulidka saarkiista fiisa laga qaataa meesha dadkooda ku dhibaa xuduudka ay bari jireen inta ka bacdi marka la eego waxa weeyaan role model door weyn buu ciyaaraa oo marka dhalinyarada abwaaniinta ah ama fanaaniinta ama ninka siyaasi oo maalin walba Ethiopia ama kuwa jeejka ay ku casuumayaan ama cad sabab ay qabanayaan ama caafimaadkooda dadka caafimaad ku tagayaan sabab qabanayaan dadka wax noqon dadka xuran oo Ethiopia lagu xuray waa yadar ka saamka caafimaadka Ethiopia u tagan waxbarashada Ethiopia u tagan dhaqaalaha ka imanaya maanta ka yimaada marka qaadka laga saaro مثلا سؤال هيك سوق سيبلك حوق الإيمان ما أنت العقل الله على كلام ماشي خطرنا ماشي الله يخاذ لا كلام وتوبيا لا كلام وأنت كيورنا قبل يسمح كسر نقولي لما تذكر مرك أنا كبقي أو لما الدنيا برنامج صدر واحد كمله يمكن ما له تدخل دبي من خالد دونا كل عام سلام كفاف فلان دونا قيمتهم أنت دبي ذكوا أكيد نحن سوالنا أما إيربورت كان دبي أما عبير كان بالبركوي يعني وذكوا هذا من نحن كبقي على مسار كيو maamulka meesha jooga waa maamul doonaya sida arkayo inuu u fudeeyo dowladda Ethiopia waddanka ay la wareegto calaamaadkeedu arkayni oo ay kamid ahaayeen sida arkisaynba kadib ay ku bixiyaan in koob kuntana ay siiyeen maxaa loo yaqaano imaaraadka soddona ay qaateen Somaliland ku saarto Ethiopia la siiyay waliba aan ku darayo oo dadka ay halka jira ay faahfaahsan board of directors ama rag loo yaqaano guddiga fulinta ee kadib balbala maamulaysa sidoo nacaska wasiir kharashaad jirta ninkan ما دون يعني أنا كلمة أفلام لكن نكن تلعسن السعد على الشيء هذا وبالو تقدودي وحويان وعفيسكي كويت بك بورت كده حكومة وحوي أما أبجدوا فلنتو وحكي ليهين لحبة إماراتها صدقنا والسوماليلاند لبنان وإثيوبيا معناه وحوي مركز شكل الجليو هدي مجورة عكابة أو شرب أنا قلنا كونسل قلنا ما دولة قلنا مركز شكل إنه يعني حد بناها وحوي هدي مجورة كفرت عيان كابتان باوركي أسكره كان لحمرك إثيوبيا لحمرك إمارات يجين وبورك كفردان ستحنا إثيوبيين لبنان إثيوبيين ولا بدي ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب بقى أربع نوع عصا اللي يجي يمكن بور اوف دايركت لسه سميا كل واحد ساعة على شنو بكده أنت رئيسي إثيوبيا هذا شيء علامات النوع عصا إيربور كوين أي كوبر شيء إمارات علامات النوع عصا يولي عرض أي مامل كمان شو كأبور يعني مك عنف أي واحد أبور يعني وإحنا محيط جدا كتيجين أنا ما نوع عصا دي عندك بدك تمانين waxaa muuqanaysa in Soomaaliland sa arkayo
ay noqonaysa qayb Ethiopia kamid ah oo loo baahay markaa qof fulo Soomaaliya ama qof Somaliland inuu ka kaco arrintan ay tahay calaamad cusub oo doonaya waddankiina inuu murjiyo Ethiopia haddaan intaa markaa aynu qodobkeynaan aynu in yar sii ifino xildhibaan aadan jaamac kan aad baad u mahadsan tahay bulshada Soomaaliyeed ee aaladda Facebook nagala socoto iyo Airo TV waan idin mahad celinaynaa commentiskiina ama faaladiina waan soo dhaweynaynaa wixii fakar iyo aragti qofku waa uu xor wixii aad doonaysa inaad ka hadashaan waad ka hadli kartaan mudana aadan jaamac kahin arrinta dambe aad ka hadashay waa arrin aad muruga u leh run ahaantii waxa weeyaan marka aad wareysato waayeelka iyo waxgaradka iyo dadka u dhuun daloola oo ku nool waddanka gudihiisa adiga waxaad imika ka shanqarisay waddanka in lala wareegayo dadka waxay qabaan in waddanka lala wareegay taariikhdii shirkii ka dhacay magaalada Abu Dhabi ka dhacay ahaa heshiiskii saddex geesoodka lagu magac daray ahaa saddex geesood khiyaano ah Somaliland iyo UAE iyo Ethiopia ay ahayd caalamka marka loo bandhigo heshiiska noocaas ah waxa la isweydiiyaa laba wadan oo heshiis dhex marayo way wada xaajoodaan laakiin wadan saddexaad ilaa Berbera Ethiopia kuma taalo Berbera Gondar iyo Goojam iyo Baxardaar iyo Lalabela kuma taalo Berbera waxay ku taalaa Soomaaliya xagee Ethiopia ka soo galaysaa inay markaa laba wadan oo heshiinayo xagee ka soo galaysaa marka taariikhda dib u baarto ama dib taariikhda ku xasuusiyo shirkii Berlin ee 1884 ka dhacay lagu qaybsanayay qaruumaha Koonfurta America Africa iyo Asia waxa saamisuga ahaa qaybsashada Afrikaanka la qaybsanayo boqor miliq Afrikada la qaybsanayo awood uu Afrika ku qaybsada ma lahayn laakiin wuxuu ahaa saamisuge oo ahaa ilaa neefka markuu libaax diloodo oo uu raqda cuno waraabaha iyo tacawada iyo xuurta iyo waxaas suga moogtay tii oo kale ayaa markaa la micno ay tahay Ethiopia inay saamisuga ka noqoto labada arrimood ee Somaliland iyo Imaaraadka ka dhaxeeyay waba la oran karaa gar iyo gardarraba labadooda wada hadli karaan laakiin Ethiopia meesha waxay u soo gashay waa wax la oran karayo in Ethiopia meesha iyada lahaanshaheeda ay gacanta ku dhigtay dib aan ku xasuusiyo directorka DP World hadda ka hor markii ugu horeysay su'aashii la weydiiyay wuxuu yiri annaga Ethiopia ayaa noo offergaraysay inaan meeshaan nimaano iyadaana noo ballan qaaday amnigeena inay sugayso annaga Somaliland iyo ayaga ismaba inuu arag iyo afkiisa ka yiri weena YouTube-ka meel walba waa laga helayaa kasoo ka kaalay markaad aragto sirdoonka Ethiopia ee Somaliland jooga markaad aragto dhalinyarada maskaxda laga mayray ee walaalnimada jacaylka muxubada xabashida lagu beeray markaad aragto dhalinyaradaasi oo lagu diray dadkii dhiigoodii iyo dheecaankoodii iyo Soomaalinimadii ka dhacay markaad aragto siyaasi biyood ah oo jeebka lagu sito oo aanan daalin oo habeen maalin aan la qoyo markaad aragto culumadii markay afka xidheen abwaanadii markay diideen inay ka gabyaan dhiilada taagan de markaa maxay tahay maxaad u malaynaysaa ugu dambeyn gunaanadka markaad aragto ifafaalaha sawirka ugu dambeeya oo ku muuqda bulshada soo bandhigaysa muxuu yahay faysal si fiican baad u faalaysay oo maasan tahay waxaan ku dari lahaa weeye horta dadka halku jira inaan in yar u faalayno macnaha dadku ay fahmaan bal sheerkan ay qaateen caynka u yahay waxa weeye sheerkan iminka ay qaateen qoladan Somaliland sheeraysaa sidaan la socoteenba waa 51% oo ay qaateen Dubai qaatay iyo 30 kuntum ay qaateen Dubai iyo 30 ay qaateen Somaliland iyo 30 ay qaateen iyo 30 ay qaateen Ethiopia waxa weeye horta arkaysaa waxa weeye wax horta xaq daraa ka dhacday meesha nin dhulkiile oo dikadii hore soo dhistay oo lacag ku baxday dawladda hore Soomaaliya maalgelisay haysta ciidiin iskale in horta in kale lagu sameeyo horta waxa weeye bahdilka adduunka weyn weyn ceeb kaliya ma aha bahdil koow laba waxa weeyaan waxba la kala iibsanaya marka doodooda loo raaco waxay leeyihiin annagu Ethiopia noo meel soo xidhin iibsanaysaa war adigu 500 milyan oo dollar oo qaad Ethiopia ka iibsay mashiir baad ku leedahay qaadka beeraha qaadka laga soo iibiyo inkastoo anigu qaadka cunno ka soo jeedo muqaddaraad iibiyayba haddana beeraha qaadka iibi dooranayaan mashiir bay ku leeyihiin mashiir baa laga sii ma Ethiopia 300 milyan qadanaysan baa ka siinayaan wax nootiin macmiil baa nootiin lama qadarin inta marka laga tago haddii aan u soo noqon doono berbere ku soo noqon markaa barbardhig markaa waxa ka dhacay Djibouti 590 milyan oo dollar ayaa lagu maalgeliyay dikada loo yaqaan doolar loo yaqaan waa meel banaan bay hay'ado hadda dikada berbera waxa isticmaalaan nimankan Dubai dikadii hore dawladda hore Soomaaliya dhistay maysteedo la Soomaaliya waxba lagu kordhin laba kirin baa la geeyay ugu dimasho waxba wax qalab loo geeyay ma jirtay hadaas
laakiin deked markaad ka hadlayso meesha loo yaqaan Jabuuti kaleeto Booraale kidi Jabuuti maaha waa deked bannaan ku taal meel bannaan ku taal oo la dhisay weyn marka waad arkaysaa meesha bannaanka ku taal ee la dhisay iyo meel dee iska dhisan dhif u dhaxay nimankii noocaasa meesha bannaankii nimankii waxaa lagu bixiyay lacag 590 milyan oo dollar ay ku baxday dekedaas weliba Jabuuti 67 boqolkiiba ay sheer kula gashay meesha ay disay Dubai Wells 3 isku noqonaysa marka boqolkiiba oo aan Ethiopia shaqo lahayn weliba Ethiopia xiriirkeeda waxa ka dhow Jabuuti oo tareen u dhaxeeya kuwa caynkaas haba xitaa intaas ka kale waxaad qabataa dekeda loo yaqaano Sawarik maalin wada maqlisiin waxa ku taala badda Suudaan u dhawaayo Suudaan ma iskale maalin wada qadar baa maalgelisay wigi hore maqlisiin waxay ku maalgelisay oo ay laba shirkadood oo iskaashi waliba ay ku magacaabeen Suudaan iyo Qatar ay Suudaan qadanaysa boqolkiiba 150 Qatar wax qadanaysa boqolkiiba 49 waxaa lagu maalgeliyay markaa lacag dhan ilaa 4 bilyan oo dollar dekeda balbarow dekeda waxay ku qaadadaa Muqdisho 5 wax ka soo baxay Soomaaliya iskale 45 waxa iskale maxaa shirkadda Turkiga iskale الفيريا ودكتور بربراء ودكتور مقدشة إيه وعندك دكتور وعندك العلاقة السنية في السودان السنة مجورة وحاس كله لبضبة وحاس كله بدك يسكله ماشي دكتور وعندك تجيبوتي مجورة وحاس كله تجيبوتي ميل لما عايو استحد كده هذي الشيء ميل قف دولة جارة أو أنت هو استقالة نسولك يسكله سومالي أنا معايو سو غير ماشي تصور تقميد أو حوي وادي حمد أبو سريس هذا كله قدر تاريخ يارو قاون وأنت هذا كله قدر السؤال ده هاي قرضاً نيكل إثيوبيا مرة بدها حسوها إنه كسومالي أمريكا خيره نيكل فيصل كله وتاريخيان وتاريخيان أبو صلا فيصل ده حسوسيو تبريو رب قرضي هو إثيوبيا إن بني لك عم فري هذا توسينيسو وحسكو دي إن زيلع قاتو تاريخيا ولما أوسو بندقي الإنجليز كان إنه دوك الصومالي قبل الوريتشيو ديو قاتو ومركا يسوق قاتو laakiin markii aan baaritaan sameynay waxaan ogaanay sababta u diiday Ingiriisku inaan ahayn wanaag uu u galayo macnaha xumaan u jeedo uu ka hor istaagayo ama Soomaali u dareynayay waxay ahayd kaliya company baa jiray dhisayay tareenka u dhaxeeya Djibouti ilaa iyo meesha loo yaqaan Addis Ababa oo 1901 la bilaabay 1922 ka dhamaday company markii uu bangiga company dhisay Faransiiska uu lacag beeray ayaa wax ku soo beeray company kale oo Ingiriis oo dhisay markii uu weydiisanay boqorku markaa saxiix uu dhamaaday waraaqii way dhamaaday ila saxiix kaliya laakiin markuu Ingiriiska arkay in company Ingiriis uu tiris ku leeyahay bishitaanka tareenka dhisayo Djibouti iyo meesha loo yaqaan Addis Ababa ay ku noqdeen waxa uu markaa dikala daadid jabay ku noqonaysaa kidisa waysa horta saa farcideed ay Ethiopia horta ku weyday in dikada la siisay taasoo bi ku biicab okay waxa kale ku noqonaya madaxweyne hadda ninka ra'iisul wasaaraha cusub waanu iman doonaa inta marka laga tago xusoo dadkii waqooyi ku soo noqonaya director of TB waruus aan ku raacsan Faisal waan dhageysano wuxuu yiri annagu waxaan u dhiirigeliyay inaan dekada barbar qabsano oo nimaadno dekada Soomaaliya dowladda Ethiopia oo annagu aan garantiina siisay macnaheedu waxa weeye markaas meeshii dowladda Ethiopia iyo iyaga socda wadankii markaa wadan la qaatay oo la qabsanayo wadada laakiin waa qatar ku soo socda marka ayagu nimankan waa niman loo talinayo oo sheerka doonaya la siinayo farta lagu fiiqayo laakiin arrinta waxa wata waa Ethiopia iyo dowladda wata soo garmaysi waxa ku yimid markaa dadkii wadanka deganaa oo kaabisa oo leedahay maxaa ku weeyay warta dad fiican way jireen oo dadkii lamada orkan wax weyn dad badan oo wanaagsan oo ama Faisal la soo xidhay ama anaga la soo xidhay wanaagsan way jireen gudaha Soomaaliya ku jira dad wanaagsan kuwa wal caburiya هذا واحد كمان يمكن يقول شيء شيء يقولها جلد جرده وصحفي أوضل كور قلعة جلدين له يقال جلد صحفي وأنا نوع عصرهم كل قاضي ما نقص مالك قتلوا حلال ودباتين بدون جيستين ولا يمكن ذا شو ضد بدون باتشيا هذا السني باتشيا وحرم لا ضد حرم جمديد باع حلال كسول سوداء بالوري جمديد وحرية أنا نوع عصري أنا نك أفكر على قاضي كسول يستوي حرية أنا وحكم وأنا الدنيا واحد أقول الدنيا محمد أبغى قرر يمكن لا هذا marka waxa weeye qofkii hadlaba waxa weeye afka laga jiray dhaqankii soo qaatay Abdi Ilay ama dhaqanka Ismaaciil Umar Gelle soo qaatay oo dadkii in la caburiyo la xiro Somaliland wala socotaa 1917 ilaa 65 qof oo maartay journalist la xiro saxaafadku ma shaqeysa meesha dadka dhulkooda website-yada eegto hal website mooyaan intooda kale waxba soo qoran
inta kale dowladda amaaraan mayno wala xanay wala qabanaya soo garamaysid boqortooy dhibkaas meesha yaalla baraash ba meesha yaalla nimanka meesha jooga nimanka meesha jooga musabixna waa niman afgambiya oo dad gaar ah ay aruursada meesha afgambi ku qabsaday laakiin niman dowladda Soomaaliya soo wada maaha dowladda Soomaaliya soo wada maaha shacabka marka Soomaaliland iyo waqooyiga Soomaaliya waxaa loo baahan yahay waddankeena badbaadiyaan oo kacaan oo ay iska celiyaan nimankan doonaya waddanka inay u wareejiyaan Itoobiya iyo Dubai waa hagaag qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena aynu kaga hadlaynaa amuuraha carre edeg geeska Afrika ayaynu ku sii siqaynaa waa qodobkii ugu dambeeyay daawadayaasheeda qadarinta leh ee nagala socdo Airo TV iyo aaladda Facebook mar kale waxaanu idin leenahay aad u soo dhawaada barnaamijka waxa igala qayb qaadanayo xildhibaan aadan jaamac kaahin oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ama xisbiga Labourka loo yaqaano ee waddanka Ingiriiska degan magaalada Milton Keynes gobolka Buckinghamshire xildhibaan gabagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaasheedana aan doonaynay inaan usoo tabino isbedel ayaa ka dhacay sida la leeyahay ama ka curtay waddanka loo yaqaano Ethiopia waxaynu ognahay nidaamka Ethiopia ka jiro inuu yahay nidaam hal gacan ah oo laba gacmood aanan mid shaqo ku lahayn ra'iisul wasaare cusub ayaa la doortay oo bedelay ra'iisul wasaarihii hore muran iyo soo jeed badan kadib dad badan waxay saadaalinayaan ama ay leeyihiin ninkani maaha nin awood badan leh ama nin maba aha wax bedel samayn karo halka dad ay qabaan inuu wax ka bedeli karo dhibaatooyinkii ama xumaantii Tigreega iyo Axmaarada iyo qowmiyadda Oromada u dhaxaysay halka dad kale ay haddana ay ka hadlayaan waddankiiba inuu isaga laftiisii jar ka sii laalaado adoo soo xoorinayo ra'iisul wasaare Abiyo muxuu yahay muxuu soo biirin karaa bal noo soo koob taariikhdiisa okay Dr. Abiy Ahmed Ali horta waa nin isagoo kasoo jeeda dhalasho ahaan abiisa la sheegay waa nin muslim ahaa samiica kaarka saamba wuxuu ku dhashay magaalo loo yaqaano Giba waxaana uu dhashay kulli 1970kii waa nin ilaa 40 jira 1900 waxuu bartay horta kulliba ninkan cilmiga kombiyuutarka bartay la sheegayo darajo ahaan ciidanka militariga ku gaaray ilaa iyo cornel wuxuu ka hawlgalay gobolka loo yaqaano gobolka uu u tagay macnaha peacekeeper ahaan ama nabad ilaaliyo wuxuu u tagay dalka loo yaqaano Rwanda ayuu joogi jiray dowladdan markaa iminka joogta Tigreega runtii way soo kiciyeen way si korba soo qaadeen sida sheegay way caawiyeen way naag soo qabaan naag Tigreega waxaanu ka dhaqday dowladda lafteeda wasiirka teknolojiyada ku dhaqday wasiirka maartay macnaha teknolojiyada ama ayuu ka noqday waddanka inta joogay haddaba 2010kii ayaa wuxuu ka noqday xildhibaan gobolka loo yaqaano Gima ayuu ka yimid Oromada la soo magacaabay kadibna markii dambe wuxuu ku jiray federaalka markii uu kacdoon ka bilaabmay gobolka ayaa dib loogu celiyay gobolka si uu dejiso marka isaga ninka loo yaqaano Lama oo hadda madaxweynaha gobolka Oroma ayuu ku xigeen u ahaa isagu waqtigaasi kacdoon ku dhacay 2015kii gobolkaas markaa joogay madaxweyne ka ahaa arrimaha ka soconaya meesha caadi ah buu la socday saddex sheegayo waxaa kaloo la sheegayaa ninka loo yaqaano Lamu waa isagu markaa haysta gobolka Oromada oo aan nin gacan siiyey kacdoonka Oromada gacan ka geystay oo ahaa ninkii markaa u fududeeyay in dadka mudaharaadooda ay dhigaan oo aan dadka walaalin oo aan la taaban la shaqeeyay kacdoonka wuxuu ahaa ninkii labeynayay soo kuxiyeen buu madaxweyne ka ahaan jiray meesha waxa kale oo dadka ay sheegayaan dadka u dhown daloola inkastoo anigu markaa qoraal badan akhriyay sheegaya wuxuu ninkani u dhown daloola kacdoonka loo yaqaano Cairo kacdoonka loo yaqaano Cairo waa qayb ka mid ah kacdoonka Oromada oo dhalinyarada ay leeyihiin oo dhalinyarada mudaharadiisa ayuu ka qayb ahaa baa la sheegay dhowr jeer Tigreeg badan baa madaxda Tigreeg way ku farti ku fiiqeen iyo ku tuunsan oo leh ninkani wuxuu kicinayaa si laamaba kacdoonka dhalinyarada ay Cairo horta ninka guud ahaan baa markaa eegto waa ninka noocaasa waxaan la soconnaa xisbiga loo yaqaano OPDO oo xisbiga ay leedahay Oromadu in loo magacaabay isaga chairman si uu prime minister ahaan uga qayb galo laakiin saddex jeerba markii ay firgarowday oo la isku afgaran waayey oo EPRF ADF raggan xukuumadda loo yaqaana waa xisbi ka mid ah Tigreega xisbi ka mid ah Oromada iyo xisbi ka mid ah oo qolada loo yaqaano sidaamada degan koonfurta ama sidaamada degan iyo xisbi Axmaarada afartaa qolo ayaa waxay leeyihiin markaa golo ka kooban oo ilaa 180 qof ah 180 qof markaa soo magacaaba ninka noqonaya prime ministerka iyo ku-xigeenkiisa saa darteed markaas
ayaa markii ay arkeen markii horta maalintii markii wax ka horeysay markii hore waxaa lagu dhawaaqay maalin hore waxaa lagu dhawaaqay shirka adoon shir ay doonayeen inay waddanka lagu sameeyo wax loo yaqaano in waddanka xukun military lagu sameeyo shirka noocaas markaasi waa taqaanaayo markii hore waxay isku dayeen Tigreegu inay qariyaan arrinta noocaasa laakiin markii dambe uu ka noqday markii dambe ninkii wuxuu yidhi arrinta noocaasa codkii waxa uu foodkariyey majority saa darteed waa ka noqonay marka waxaa la sheegayaa markii hore axmaaradu way kala sabsaneed waqtigaas isagaa laakiin hadda markii shirkii dambeysay la sugiyay EPRF isu timid ayaa axmaaradu bedeshay markaa joogii ninkii marka axmaarada afartii qof soo sharxay waxaa kala ahay horta Dr. Abiy oo ay weetay ormadu Shafran oo koonfurta weetay iyo ninka loo yaqaan Dr. Gabriel oo isagu ahaa xabashi iyo ninka kale afartan nin baahan laakiin markii shirkii la galay sida la sheegayo waxa markaa shirkii isaga ahaa ka baxay oo ka baaqday macnaha magacawgii ra'iisul wasaarnimada iska joojiyay axmaaradii oo gacansan la yeeshay ormadii saa darteed markaa ormadii iyo soo baxeen majority ahaan iyo axmaaradii iskaashanaya soo saaray ninkan qoladan kale ee loo yaqaano koonfurtana ilaa 18 xildhibaan ayaa markaa iyaguna codkii siiyey saasuu ku helay markaa 108 cod soo baxay doctorkii loo yaqaano Dr. Abiy horta ku soo baxay iyo backgroundkii barnaamijka cusub ay kaas waa sida okay annagoo gabagabadii barnaamijkeena ku jirno waxaynu ku soo gunaanadaynaa ninka odayga ee la doortay waxa uu durtaba ka hadlay oo uu sheegay kow arrintiis dekada berbera oo uu ka hadlay markii maalintii sida loo doortay kow waxa kale oo ka hadlay inuu heshiis ama wada hadal la furi doono Eritrea laakiin marna ma uusan soo qaadin jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya inuu la hadlayo marna ma uusan soo qaadin maxaa marka loo malayn karayaa mar haddii uu yiri Eritrean la hadlaya dekada berberana uu sheegay inay guul ahayd dadkii wadaniyiinta ah Soomaali galbeed ama Ogaadeniya lahaan inuusan soo qaadin halka maxaa kaaga baxay oo soo koobaya horta Cabdisalaam aan xalay Faisal walaastii qayb ka dhigaysanayay waxaan ka xasuustaa kamid markuu Eritrea la hadlayay laba kalimood ku dhawaaqay oo mid ay tahay dadka aan walaalaanahay ee isku dhaqanka isku diinta nahay isku afkana nahay isku diinta nahay labada eray ay isticmaalay dadka aan walaalaanahay isku dhaqanka afka isku diinta nahay marka horta ku tusaa markaa inuu doonayo markaa inay door ciyaaraan cusub sababta way Ethiopia waddanka ugu weyn cadawga ka baqdaa Soomaaliya weyn marka bacdama ay Soomaaliya imika soo kacayso waxa doonaya markaa inuu door ciyaaro oo ciidamada xoog leh ay geeyaan Eritrea ay markaa ka joojiyaan meesha oo markaa ay Eritrea xiriir fiican la samaystaan hadhowna ay Soomaaliya xaggeeda focus saaran marka saa darteed ayuu ninka siyaasadda soo dhaweynaya Eritrea oo wuxuu doonaya laba quwadood inaan la dagaalamin ee quwadda xoogga saaraysa Soomaaliya tahay kaliya laakiin kuwan ay ka baxaan mid kale waxaa la soconaa Eritrea iyo masaarada imika waxay leeyihiin wax loo yaqaano gacansaar masarna ciidan badan bay ay keentay ay keentay meesha loo yaqaano Eritrea waxaa laga baqayaa markaa masaarada inay weerar ku qaado iyadoo ka baqaysa iyadoo doonaysa in dumiso biyo xareenka weyn ee ku yaalla abi loo yaqaano ku yaalla Ethiopian ka dhisanayso kaasoo aragta masaaradu inuu yahay meel biyihii ee masaaradu iman lahaa ka yaraynaysa marka colaadda kasoo baxaysa xagga Eritrea waa iskaashanaya Eritrea iyo masaaradu ayuu doonaya ka hortago iyo midda kale future-ka oo ah inuu cadowga Eritrea iska yareeyo si ay focus u saaraan Soomaaliya kaasoo midda kale hadda ku soo noqdo dekada berbera hadda waa ninka Faisal boqorkii hore Ethiopia boqorkii hore waxa loo yaqaanay Malik wuxuu markii horeba isugu ku doodayay in la siiyo Zeylac وسان كل شيء لص حي وفرع ديك بحثي وإنجليز بركا كم أجي بعد ما عصام لي عشان قرضنا بكل شيء ده بركا سد رديد نمكن نقول بتشانس بقدرين وعمل كهرا لكن وحى نعس نما أدقن نما أو حبيرات قف صومال نما الضمير لو قدم قرايو يا رجع ما أنت فدي هالك عن كلمة أنا يفسر كلمة وكوي عم سمال لكن كلمة فدي ما ممكن قعدت كهايا إنه قدام نمن حد هالجميسيا وما أنت من جميسي وأدية ووجه كان شر سوالي ما وتان لك شر سوالي ما هو من أحمر وأدية وأوفو ذي يا مانتا إني أحمر ماشي اللون سعر كسام وجبدي هذا نوع حنقصه جنانا دينا واحد شراء سنة هوري سؤال شيء دي كترتي جماعة ودني كحورين توجادينيا أو أهنما ودنينا أو كتجعلما لولكوجا هايستا كنا تجعلما عيد دودي على كودي أنت هنوصل دمني
qoomiyadda oromo waxaan ognahay dhowrkii sana lasoo wadaartay iyo qoomiyadda soomaaliya in laisku soo feynayay in dad badan oo soomaaliya oo birmageyda ah lagu dabxay oo lagu laayay dhulalkaas sohdimaha oromada iyo soomaalida iyo dhulal badan oo soomaaliyeed oo oromada kilinka oromada qayb ka ah qoomiyadahaasi laisku soo feynayo isbedelkeedii ama arinteedii waxay dad badan ku saadaalinayaan inay soo afjari doonto ninkan markuu meesha yimaado dadka u dhuundaloolo ama odoriso arrimaha siyaasadda ka taagan magaalada jigjiga waxay aad iyo aad uga hadlayaan inuu sida fiinta uga qeyliyay cabdi cumar ra-iisul wasaaraha cusub oo aad uga gows adeegay isagoo oo markaasi loo aaneynayo inuu qayb ka ahaa waxyaabaha la aloosayo haddayna markaas soo gunaanado adoo soo gunaanadayo jamaacadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo yani muddo aada u dheer halgan kusoo jirtay ma laga yaabaa inuu wada hadal cusub uu ka yimaado dhinaca ra-iisul wasaaraha oo bilowdo ma dhici karaysa arrintaasi say adig kula tahay horta waxaweyaan horta marka dee ay dadkaas horta waxawey waa arrin loo fadhiya inuu soo bandhiga isagu laakiin waxaa loo baahanya marka hore in dadka gudaha jooga dhaqaar sameeyaan waayo dee halgan keliminka yimid oo barnaamij kusoo baxay shacabkiisaa keenay marka nasiib darada meesha taala waxa weeyaan anigu oo naftu waa niman halgamayaala oo aan u hambaleynayo waliba wasiir khaarijiyaha maadi iyo gudoomiyaha cumar intaba anagu saxaab baan nahay aniga faysal boo shil badan liinoo ka qayb galnay niman halgamayaala ogaadeen ama soomaali galbeed guud ahaan balo waa dad aad u halgamaya oo dad sharaf oo fiican weeyaan laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan ninkan soo baxay dadkiisaa soo saaray oo ormada kacdoonkii odobada ay sameeyeen iyo ormadii dibadda joogtay mucaaradka ay ku gudaha iskaashada ay ku soo baxay ninkan marka waxa weeyaan dadkan halgamaya oo lafta ah waxa carqaladeynaya oo hortaagan ninkan loo yaqaan cabdi ilay oo ah shakhsi ay xabashidu ku adagto waxaan ogahay anigu aan reer bal ka sameeyey 10 madaxweyne ama 10 gudoomiye oo fadhiyey meesha loo yaqaano jijiga ayaa nin walba sanad aan laba sano hayay isagoo maanta 6 sano u marayaa sababta anigu aan fahmaysanin waxa weeye nin sidaa ugu daacada oo dadkiisa leynaya oo hablihiisa kufsanaya oo shacabkiisa leynaya isaga maa la heli maayo xabashidu ama fikiraya ha noqdo ama nin kala noqdee dhibaatada u horreerta tahay waxa weeye ay mar walba uga wareeyaan oo bedelan waxa weeye waxay ogyihiin cabdi cumar ninka loo yaqaano inuu yahay nin iska xabashi oo sida xabashida u dhaqmayo oo dadkii leynaya oo dilaya oo hadday barita ka eriyaan meeshaas ay ku adkaan doonto nin soomaaliya oo kasoo baxa jijiga inuu dhaqmo siiso kale marka horta ninkaas horta waxa weye ninka carqalada meeqa jikada midda kale waxa weeye uu ka qeylaya fiinta waayo waa run cabdi ilay maxamed cumar haddaan ku noqono taariikhda dib bay u weyeysaa marka adoonkii maxaa la dhahay ormada samaynaysa nin walba u arkay waxa weeye wuxuu ahaa ninkii soo kaxeeyey jijigo oo dhan ee keenay maxaa la dhaha kubadda cagta ay ku tahay meesha kubadda cagta lagu ciyaaray stadium ku yaalla jijiga oo dadka ku qasbay oo ku yidhi mudaaraada waxaad ku tirahdaan ormada iyo qolada kale axmaarada waa ka soo horjeeda dadkii mudaarada bay ka dhigeen meesha iyagoo qaylinaya taa u taalla markaas iyadoo oo lagu adeeganayo oo tigreega ku adeeganayso okay mid baa taalla marka tigreega maanta haddaan siyaasadda ku noqono etoobiya aan dib u galno tigreega waxay ka baxay marka tigreegii maanta waxay ka baxay waxa weeye tigreegii gudoomiye barnaamijka tigreega maaha axmaar yahan filaya barnaamijka waxa weeye waa abi waa nin oromo labadii baan isu kaashaday tigreegii banaanka la dhigay qoladii xataa shucuubta koonfureedna maanta iyaguna waxay la socdaan qoladan isbitaalada meesha taalla waxa weeye anuu garan maayo cabdi cumar dadkiisa u leynayana xataa soomaalidu kuwa xataa go-aanka gaaraya kuma jiraan qolada afarta guuraysa ha ahaatee waxaa lay sheegay in tigreegii markuu cadhooday laga eriyay meesha nimankii qabsadeen oo maqalla shir ku qabtay shirka maqallada ku qabtay ayuu kuwii laga cararay waa ka midii soomaalidu iyo canfartii shir ku qabtay meesha oo ku leeyahay macnaa maxaa yeelaa ruwitada kalma soo garmaysa marka waxa weeye waxaan ka wada waxa weeye alaa kulli xaal cabdi cumar wuu fashilan yahay ninkana waa ninkii kacdoonka kayaro ka qayb qaatay weeyaan isaga laabo waa raggii wada shaqeynayay waa raggii ogaa inuu cabdi ilay ahaa ninkii ciidamadan new booliska ormada ku degeeyay ee ku kicinayay kuna dagaalayay marka horta u malayn maayo ninkaas inuu meesha joogay totally laakiin dadka hadduu nin kale cusub yimaado waxaa ka codsanaya in dadka noocaasi ay wada shaqeeyaan oo lafta oo siday isu kaashadeen qolada ormada gudaha ku jirta iyo kuwa dibadba ay wada shaqeeyaan oo soomaalinimada ka wada shaqeeyaan oo kacdoonka halka bilaaban waa hagaag intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii aad kala socoteen airo t v iyo aaladda facebooka aynu uga magac darnay amuuraha ka taagan carre edeg waxaynu kusoo qaadanay maanta 3 qodob oo kale ah arrimaha siyaasadda ee cakiran ee ka jira geyiga soomaaliyeed gaar ahaan arrinta baarlamaanka qodobka labaad aynu kusoo qaadanay wuxuu ahaa somalilan oo dacar qooshatay
qodobka saddexaad isaguna aan iraade aan kusoo qaadanay barnaamijkan wuxuu ahaa siyaasadda ama amuuraha cusub ay laftooda kasoo aloosan ama ka curtayba wadanka loo yaqaano Ethiopia. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay xildhibaan aadan jaamac kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha wadanka Ingiriiska. barnaamijkan waxaa idin daadahinaya anigoo Faysal Abrone. intaan ku kulmi doono mar kale barnaamijka mid la mid ah waxaanu idinkaga tegi doonaa Soomaalinimo isku hilbadirir in aad aayihiina iyo taladiina iyo teeladiina iyo cuudkiina aad idinku tashataan. intaa ayaan idinkaga tegaynaa. waxaan idin leenahay Soomaaliya ha midowdo.